cid kastoo i xumayso cafis baan la jeclahay, cid kastoo i xishmaysa cizi iyo sharaf baan u hayaa. dhaqso ma caroodo balse waan dulqaad badan yahay. qof kastoo adduunka ku nool wuxuu jecel yahay in la amaano, balse Allah subxaanahu wa tacaala dadka dhammaantood muu simin. qof bay nolosha ku adag tahay, qofna nolosha way u fududahay. qof buu Ilaahay subxaanahu wa tacaala hanti iyo maal siiyay, qofna wuxuu ka dhigay faqiir ayuu ka dhigay. marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa noo kala qoray qof kastoo meesha ku dambeyn lahayd. marka haddaa aragto qof Ilaahay subxaanahu wa tacaala u nimceeyay adduunkan, ugu nimceeyay maal, hanti, dad jecel gudi haysto, haddaad aragto qof noocaas oo kale dheh maasha Allah. waayo qofka haddaad dhahdo maasha Allah qalbigiisii wuu dhismayaa, qalbiga wuxuu ka dareemayaa farxad ayuu ka dareemayaa. kelmadda maasha Allah waa kelmad aad u fiican, balse dadka dhammaantood ma isticmaalaan. waxaa arkaysaa qof bulshada dhammaantood ay jecel yihiin, qofkaas waad fiirinaysaa. haddaad dhihin maasha Allah waxaa laga yaabaa ishaadii inay ku dhacdo. marka il bili aadanna ma laga kaca. qofka haddii ku dhacdo il bili aadan waxaa laga yaabaa il bili aadan inuu dhinto. marka waxaa isticmaashaa kelmadda maasha Allah markastoo wax wanaagsan aad aragto, waxaad isticmaashaa maasha Allah si adigana lagu dhaho maasha Allah. qofka bini'aadanka markaa ku dhahdo maasha Allah asagoo ku maqlaya, runtii waxaad arkaysaa qofka asagoo dhoola cadeynaya,